waddanka Uganda waxaa tababar loo soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Cutubyadan ayaa waxaa halkaasi tababar uga socdeen muddo 6 bilood ah. xafladaasi xiritaanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socda wasaaradaha gaashaandhigga ee waddanka Soomaaliya iyo Uganda. Sida uu faafaynta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Yamani. Carbiska oo socday muddo 6 bilood ah ayaa maanta loo soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. iyadoo ay ka soo qayb galeen wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Sareeya Guuto Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab, madaxa howlwadeenka xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Colonel Cabdirasaaq Maxamuud Roble Dimuqraadi iyo safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Uganda Sayid Axmed Sheekh Daahir. wafdiga ayaa waxaa diyaarada helikobtara waxa ay ka qaaday magaalada Kampala iyadoo sidoo kalena ay ku weheliyaan safarkaasi xubno ka socda dowladda Uganda oo horkacayo wasiirka gaashaandhigga Dr. Crispus Kionga, safiirka xogeenka safaaradda Uganda ee dalka Soomaaliya, taliyaha ciidamada dhulka iyo saraakiil kale oo ka socotay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan. markii ay wafdigu gaareen xerada Bihanga ee ku taala gobolka Ibanda ee galbeedka dalkan Uganda ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay saraakiil ka socotay midowga Yurub oo hogaaminayay safiirka midowga Yurub ee dalka Uganda Mr. Ridolfo iyo taliyaha xerada uu tababarku uga socday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana intaa kadib wafdiga loo soo bandhigay macluumaad ku saabsan xerada Bihanga iyo ciidamada tababarka ku qaadanaya, iyadoo sidoo kalena loo qaybiyay nuqul ka tarjumaya xaaladaha nololeed, tababaradii ay qaadan jireen iyo macluumaad ku saabsan ciidamada tababarka dhamaystay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyagu dhamaystay tababarka ayaa halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen xeeladihii dagaal ee qaateen intii ay ku jireen xeradan, iyadoo tababarada la siinayay ay isugu jireen qaabka loo baaro kantaroolada, sida looga dagaalamo magaalooyinka dhexdooda, qaybta karateega iyo qaybo kala duwan oo dhammaantood ay u soo bandhigeen si ay la dhaceen wufuudii ka soo qayb gashay tababarkani. xafladan lagu soo xiriyay carbiska la siiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa hadal ka jeediyay wufuud ka kala socotay midowga Yurub, dowladda Uganda iyo wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya. safiirka midowga Yurub oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in midowga Yurub uu dadaal badan u galay sidii dowladda Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd, iyadana uu sheegay in tababarkan ay siiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dhowr sano qaatay uu tusaale cad u yahay. I'm very honored to speak to you today in the EUTM is an excellent example of cooperation between Uganda, the European Union and Somalia for the stability, the security and the peace in the Horn of Africa. safiirka ayaa dhinaca kale sheegay in midowga Yurub hadda wixii ka dambeeyay ciidamada Soomaaliya uu ku tababari doono gudaha dalka, arrintaasi oo ah mid dowladda Soomaaliya ay dadaal badan u gashay sidii ciidamada Soomaaliya ay tababar ugu qaadan lahaayeen dalkooda. safiirka ayaa sidoo kale carabaabay in tababarkan ay iska kaashadeen 21 dal ee ka tirsan midowga Yurub iyo dalka Serbia. taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Uganda oo khudbad kooban ka jeediyay xafladan ayaa sheegay in tirada guud ee ciidamada maanta dhamaysatay tababarkani ay gaarayaan 500 oo askari, isagoo sheegay in tirada guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee lagu tababaray xerada Bihanga ay gaarayaan 4177 askari oo dhammaantood dib loogu celiyay gudaha dalka Soomaaliya. intaasi kadib ayaa wasiirka gaashaandhigga dalka Uganda waxa uu mikrofoonka ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Sareeya Guuto Axmed Carab. wasiirka ayaa ugu hambaleeyay dowladda Uganda sidii ay u soo dhaweeyeen iyo taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga dalka Uganda Dr. Crispus Kionga oo isna hadal kooban u jeediyay ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka dhamaystay ayaa ku booriyay inay danta guud ka horeysiyaan tan qabiilka, isla markaana marka ay dalka dib ugu noqdaan aanay ku dhexmilmin shacabka Soomaaliyeed. And I want to thank you, the young men and women from Somalia, for coming the whole way to come and get skills so that you can fight for your own security, for your own country. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo loogu tababaraa meelo kala duwan oo ka mid ah caalamka oo dalka Ugandana uu ka mid yahay. waxaana xerada Bihanga oo ku taala galbeedka dalkan Uganda la aasaasay sanadii 2008. waxaana markii hore qorshaha tababaridda ciidamada Soomaaliya isku xil saartay dowladda Uganda, iyadoo markii dambena taageero ka heshay wadamada midowga Yurub oo gacan weyn ka geystay sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loo siin lahaa tababaro ku filan.
tababarkan ayaa noqonaya tababarkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu siiyo xerada Bihanga ee ku taala gobolka Ibanda ee galbeedka dalkan Uganda sida uu sheegay safiirka midowga Yurub u fadhiya dalkan Uganda waxa hadda kadib ciidamada Soomaaliya lagu tababari doonaa gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Maxamed Yamani TV-ga caalamiga ee Somali Channel xerada Bihanga ee ku taala galbeedka dalkan Uganda